Mid ka mid ah boqorradii horey ugu talin jiray dalka Yemen ayaa wuxuu ku caanbaxay madax-adayg iyo gardarro isbiirsaday. Hantida shacabkiisa ayuuna si aan qarsoonayn ugu tagrifali jiray. Culimadana dadaal kuma yareen oo waxay ugu digi jireen cirib xumo iyo kacdoon shacab inay ka dhalan karto arrinka, balse isagu ma ahayn mid dheg jalaq u siiya. Boqorku waxa uu qabay xaas wanaagsan oo leh garasho, gardarro diidnimo iyo gaarinimadii dumar wanaagsan lagu yaqiinay. Waxay arkaysay baaba iyo burburka uu boqorku ku wado shacabka iyo dulmanayaasha qasriga ay ku nooshahay lagu handadayo maalin iyo habeen. Waxay ka codsatay inuu u dhimriyo dadka masaakiinta ah, wuxuuse ugu warceliyey oo raahal hays u ahayd: gaajaysi eygaaga si uu kuu soo raaco. Boqorka waayeel iyo wadaadba ka tala diiday, waxa uu dhaqanka sida ahaa ku joogaba. Shacabkii oo kolkolku ka tambatay ayaa ku kacay, wayna ka takhaluseen meydkiisa ayayna jidka dhigeen. Nin ayaa maalin jidka ku soo maray meydka boqorka oo wax astura la waayey, waxuuna ku yidhi isagoo ku jeesjeesaya: waxaa laga yaabaa in eygu cuno meydka laga rabay inuu tarbiyeeyo hadduu habdhaqanku ka xumaado. Isagoo ka falcelinaya oraahdii mahadhanka ahayd ee uu boqorku ku caanbaxay, eygaaga gaajaysi si uu kuu soo raaco, uuna kala jeeday in shacabku markay gaajoodaan ay dabagalayaan oo ay raacayaan.